والله سلام خيري horta maalmahan ma soo galin TikTok live lama soo galin video lama soo post galeen sababtuna waa fahmi kartaan dad yar fahmi karo cunay hawada marka intuu ka soo baxaya jiraan ku jiraan arintii jirta waxay tahay laba gabdhood waxa lagu kufsaday 30 nin arintii jirta waa laba gabdhood oo lagu kufsaday 30 nin ilaahay ku dhariyo waxaas maxay tahay dadkii u kici lahaa dadkii hadli lahaa hal qof soo hadlay hal qof kuwa waxay ku leeyihiin foosto way kuwa waxay ku leeyihiin arin qabiil way war ilaahay ku dharay laba gabdhood la kufsaday Soomaaliya miya la gadinaya arinka foosto loo gadinaya wala inta damiirkii intuu idinka aada damiirkii anaga gabdhahana maalin baa loo soo dhigtay mid maalin la kufsado mid maalin la dilo mid webi laga tuuro mid la silciyo macnaha gabdhaha ay ehel iyo qaraabo iyo Soomaali kama dhalanin miya dadka warkaca oo gabdhaheena u kaca gabdhaheena Soomaaliyeed u kaca oo aan u kacno aan dhahna gabdhaheena xataa sidaan si u dhow xataa gabdhaheena Soomaaliyeed uma qalmaan saaxiibiya been idin ma sheegay wallahi war xataa fiiriya gabar yar oo kale wala sheegay gabar yar fiiriya yar 8 sano jirto aanin weyn kufsadayadana uu iskugu furaa la dhanaacay ilaahay ku dhaariyo waxaas ka warama dawladda ma jirta miya meesha hadayna dawlad jirin shacab ma jirin miya hadii shacab uu jirin ma jirin miya dad contact creator oo internet ka isticmaalo oo waxaan ka hadli karo oo dhihi kara waxaan anaga waa ka dhiidinayna ma yeelayna dhihi kara malahan miya war waxa sida isku dhaamanay aan ka canaanay gabdhaheena Soomaaliyeed oo ka canaanay mayo